maamulka Tigreega ee Itoobiya xooga ku haysta ayaa markii ugu horeysay war-saxaafadeed ka soo saaray kumanaan qof oo qoomiyadda Tigreega u dhashay kuwaasi oo isaga soo cararay gobolka Xabashida ee Itoobiya balse ay dowladda kilalka Xabashidu sheegtay in laga soo masaafuriyay magaalada Gondar ee muranku ka taagan yahay. shir jaraa'id oo ay magaalada Maqala ku qabteen madaxda maamulka Tigreega ayay ku sheegeen in dad gaaraya 4,060 qof oo Tigreeg ah ay hadda qaxooti ku yihiin gobolkooda. madaxda maamulka Tigreega ayaa sheegay in dawladdu gacanta ku hayso dadka soo barakacay iyadoo hadda laga sameeyay xarumo ku meel gaar ah oo lagu qoodiyo iyo deegaano ay ku noolaadaan magaalooyinka Humera, Endasalasa, Aksum iyo Makala. dadka soo qaxay ayaa la sheegay in qaarkood ay gobolka Xabashida gaar ahaan magaalada Gondar ku noolaayeen muddo ku dhow 40 sano. talabada lagu soo saaray bulshada Tigreega ee gobolka Amxaarada ku noolayd waa mid isirsifayn ah, waana qorshe salka ku haya dagaal ahli ah iyo siyaasad mana aha mid loo dulqaadan karo ayaa ka mid ahaa hadallada saraakiisha TPLF. qaar ka mid ah dadka soo qaxay ayaa la sheegay inay ahaayeen ganacsato isla mar ahaantaana hantidooda la boobay. sidoo kale dadka ka cararay dagaalada iyo dhibaatooyinka ka socda gobolka Xabashida ayay dowladda kilalka Tigreega ku sheegeen inay ka mid yihiin saraakiil iyo shaqaale u shaqaynayay dowladda dhexe ee waddanka Itoobiya. kooxda TPLF ayaa sheegtay in la diiwaan galinayo dadka hantidooda la boobay iyadoo sida hadalkooda ka muuqatay ay magdhow hantiyeed weydiin doonaan maamulka Xabashida oo ay kooxda TPLF ku eedeysay inay ka dambeeyaan rabshadaha iyo dagaalada ka socda guud ahaan dalka Itoobiya. waxaa weli dhulka Xabashida ku godoonsan boqolaal Tigreeg ah oo xaaladooda ammaan khatar ku jirta, waxaana isku day doonaa inaan gacan ka geysano sidii loo badbaadin lahaa dadka shacabka ah ee weerarka nacaybka iyo isirsifaynta ah lagu soo qaaday ayaa ka mid ahaa sargaalka qabtay shirka jaraa'id. 2 maalin ka hor ayaa ahayd markii xadka wadamada Itoobiya iyo Suudaan ay ka gudbeen qaxooti Tigreeg ah oo tiradooda lagu sheegay in ka badan 1,500 oo ruux, balse ay dowladda Suudaan dib ugu celisay gobolka Tigreega iyadoo hay'adda UNHCR gacan ka geysatay. kooxda TPLF ee xukunka waddanka Itoobiya xooga ku haysata ayaa u mahad celisay madaxweynaha waddanka Suudaan Umar Xasan al-Bashir iyo dowladiisa. shirka jaraa'id ee mas'uuliyiinta Tigreega ku qabteen magaalada Maqala ayaa daaha ka rogay khilaafka ba'an ee u dhexeeya kooxda TPLF iyadoo mas'uuliyiinta gobolku ku baaqeen in meel la iska dhigo kala aragti duwanaanshaha iyo looltanka siyaasadeed ee u dhexeeya siyaasiyiinta TPLF isla mar ahaantaana meel looga soo wada jeedsado sidii loo midayn lahaa dadka qoomiyadda Tigreega u dhashay. in ka badan 450 ka tirsan ciidamada militariga ee dalka Itoobiya ayaa ku biiray kacdoonka looga soo horjeedo dowladda dhexe ee dalka Itoobiya gaar ahaan kooxda TPLF ee xukunka dalka xooga ku haysata. ciidamadan oo muuqaalkooda laga sii daayay telefishinka Isaad ee mucaaradka ayaa la arkayay iyaga oo gaadiidka dagaalka ee dowladda Itoobiya wata sidoo kalena wadooyinka la maraya. ciidamadan ayaa ruuxaya calankii hore ee dowladda Dargiga ee xukunka laga tuuray. xaaladda ammaan ee dalka Itoobiya ayaa faraha ka baxday waxaana jirta cabsi aad u xoog badan. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa amar ku bixiyay in la xasuuqo dadka shacabka waxaana hawada laga saaray dhammaanba isgaarsiinta gobolka Xabashida iyadoo guud ahaanba waddanka Itoobiya hoos loo dhigay. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay baaritaan ku samayn doonto waxyaabaha dhaliyay dabkii qabsaday dhismaha xabsiga caanka ah ee Qilinitu ee ku yaala magaalada Addis Ababa. ugu yaraan 20 ka mid ah dadka maxaabiista ayaa la sheegay in toogasho lagu dilay. ururada xuquuqul insaanka iyo dadka dibadbaxayaasha ah ee gobolada Amxaarada iyo Oromiya ayaa sheegay in ciidamada ammaanku dab qabadsiiyeen dad maxaabiis ah halka kuwa kalena toogasho lagu dilay. mid ka mid ah shaqaalaha xabsiga oo magaciisa ka gaabsaday ayaa xaqiijiyay inuu markhaati ka ahaa ugu yaraan 18 qof oo maxaabiis oo ay ciidamada ammaanku toogasho ku dileen markii uu dabku kacay. safiirka dowladda Mareykanka ee qaramada midoobay Samantha Power ayaa mar kale ku celisay xadgudubyada iyo tacadiyada arxan darrada ah ay ciidamada dowladda gumaysiga Itoobiya ku hayaan dadka shacabka. safiirka dowladda Washington oo galabnimadii shalay ahayd saxaafadda la hadlaysay ayaa sheegtay inay socdaal ku tagi doonto magaalada Juba ee xarunta dalka Koonfurta Suudaan iyadoo maanta oo Isniinana la filayo inay uga sii gudubto magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Samantha Power ayaa la filayaa inay kulan magaalada Addis Ababa kula yeelato saraakiisha ugu sareysa dowladda dhexe ee waddanka Itoobiya. safiirka qaramada midoobay ee dowladda Mareykanka ayaa ku baaqday in la sameeyo baaritaan caalami oo madax bannaan iyadoo hadalkeeda ku dartay in ciidamada ammaanka dalka Itoobiya isticmaaleen awood xad dhaaf ah iyo inay isku dayeen inay xoog ku muqooniyaan dadka dibadbaxaya.